سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقييمها بدن ee ku xiran janalka Curad Caashaq waxaan idinla wadaagayaa ku saabsan cawaaqib xumada ku dhacda dadka caadaystay dhaqamada xunxun. qisadan ayaa waxay ku saabsan tahay wiil dhalinyaro ah oo caado ka dhigtay inuu masaajidada ka xado kabaha. maalmaha ka mid ah ayaa wuxuu yimid masaajid si uu kaba uga xado, wuxuuna kabihiisii ku siibay iridda hore ee masaajidka, wuxuuna qaatay kaba cusub oo uu meesha ku siibay mid ka mid ah jameecadkii masaajidka ku tukanayay, isagoo kabihii u qaatay meel uu ku iibiyo kabaha. uu soo xaday kadibna shilimaad yar uu ku iibsaday. waqti kadib wuxuu dib ugu soo laabtay masaajidkii si uu mar kale u xado kabo. maxaa ku dhacay? waxaa ku dhacay arrin la yaab leh. wuxuu sida caadada ahaydba siibay kabihiisii, kadibna wuxuu damcay in uu qaato kabihii uu doonayay in uu qaato. mid ka mid a lugtiisii ayuu wuxuu geliyey kabtii si uu u qaato. lugtii koowaad markii uu geliyey ayuu wuxuu damcay lugtii labaadna inuu geliyo kabtii kale, balse maxaa haleelay? waxaa haleelay wixii haleeli lahaa oo dhib ah. waxaa meesha uga soo baxay ama ka qaniinay mas aan u maleeyey inuu waardiye ka yahay kabtaas uu lahaa qofka mu'minka ah ee masaajidka ku jira, loona soo diray qofkan caadaystay dhaqamada xunxun si uu u mariyo ciqaabtiisii uu muteystay. waxaa hal mar qayliyey ninkii dhaqamada xunxun caadaystay ee kabta xadayay. kadib markii uu maskii qaniinay, waxaa ku soo baxay qaybo ka mid a jameecadkii masaajidka oo halkii ka qaaday. haddaba middan waxay ku tusinaysaa dhaqamada xunxun iyo cawaaqib xumada uu qofka kala kulmo. haddaba dhegayste, sii faafi sheekadan. waxaa laga yaabaa in dad badan oo dhaqamadaasi lahaa iyo kuwo kasii xunba ay kuwaana qaataan. laagna igu dhiirageli si aan u soo badiyo muuqaalada noocan oo kale ah. waad ku mahadsan tahay dhegaysiga iyo daawashada muuqaalada aan soo dhigo. waana saaxiibkiin Cabdulaahi Maxamed Cabdi CMC oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.